muddo ku siman toddobaad ayaa laga joogaa markii saddexda xisbi qaran iyo madaxweynaha Soomaaliland ay heshiis rasmi ah oo la xidhiidha muranka doorashooyinka ku kala saxdeen qasriga madaxtooyada Soomaaliland kaas oo ay qayb ka ahayd beesha caalamku laguna soo afjarayay murankii muddada ka taagnaa dhinaca doorashooyinka iyo xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka bulshada ku dhaqan Soomaaliland ayaa wali u dhagtaagaysa fulinta qodobadii heshiiska saddex geesoodka ahaa kuwaasi oo sheegaya in doorashooyinka ay qabtaan komishankii hore ee doorashooyinka ee waqtigoodu idlaaday halka kuwa cusubna ay ku dhawaaqayaan natiijada iyadoo sidoo kalena ay qayb ka yihiin xubno ka socda beesha caalamka ma jiro ilaa hadda wax ka fulay heshiiskaasi dhex maray xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha sida wararku sheegayaan marka laga yimaado kulamo hoose oo dhex maray xukuumadda xubnaha komishanka ee lagu heshiiyay inay qabtaan doorashada iyo kuwa cusubba kuwaas oo aan la ogeyn waxyaabaha ay kaga wada hadleen kulamadaas balse la aaminsan yahay in labada dhinacba ay kaga wada hadleen sidii loo dhaqaajin lahaa dhaqangelinta heshiiskaas si loo qabto doorasho dhinaca kale warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in xisbiyada mucaaridka ah iyo madaxweynuhu ay mar kale ku kala aragti duwan yihiin qaabka ay u soo buuxinayaan labadooda xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka inkastoo aanu jirin war rasmi ah oo laga hayo arrintaasi oo ka soo baxay xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda balse waxa laga sugayaa xisbiyada mucaaridka ah inay soo buuxiyaan labadii xubnood ee u matali lahaa komishanka kuwaas oo hore uga maqnaa xubnaha komishanka fulinta qodobadan lagu heshiiyay ayaa sidoo kale waajahaya waafajin dhinaca sharciga iyadoo ay jiraan xildhibaano ka tirsan guurtida iyo wakiilada Soomaaliland iyo sharci yaqaano ku tilmaamay qodobadii heshiiska inaanu waafaqsanayn dhinaca sharciga loona baahan yahay inuu madaxweynuhu dib u eegis ku sameeyo balse ma muuqato ilaa iyo hadda muddada toddobaadka ah ee ka soo wareegtay heshiiskii saddex geesoodka ahaa wax tallaabo ah oo muuqata oo loo qaaday dhinaca fulinta ee qodobadaasi heshiiskan ayaa yimi kadib markii madaxweynaha Soomaaliland uu shaaciyay inuu furi doono ururadii siyaasadda maadaama ay ismari waayeen xisbiyada mucaaridka ah laguna guuldareystay heshiisyo hore ay wada galeen taasoo meesha ka saartay rabitaankii xisbiyada mucaaridka ah oo doonayay in la kala diro xubnaha komishanka cusub ee doorashooyinka waxaanay sababtay inay badbaadsadaan xisbiyadooda oo aanay dib uga soo bilaabin ururo siyaasadeed iyagoona ogolaaday in ay doorashada u qabtaan komishankii ay hore u diidanayeen si kastaba ha ahaatee heshiiskan oo si weyn loo soo dhaweeyay rajo badanna laga qabo inuu soo afjaro murankii doorashada ayaa bulshada Soomaaliland u dhagtaagaysa fulintiisa si ay wadanka uga qabsoomaan doorashooyinku oo aanay mar kale dib u dhac ugu iman Axmed Nuur Ciise telefishanka bulsho Hargeysa ma ogtahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxa kamid ah Afrika, Asia, qaybo kamid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in la kadib kubaad frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dhiishka kubaad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin